bismillaahirraxmaanirraxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo natiijooyinkii kulamadii shalay la ciyaare ee Copa Euro 2020 iyo Copa America oo si rasmi ah xalay u furmay. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo like saar asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. aynu ku bilownay waxaa shalay la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsanaa Copa Euro 2020 kulankii ugu horeeyay ee shalay ayaa ahaa kii dhexmaray xulalka England iyo Croatia waxaana gool iyo eber ay guusha ku raacday xulka England weeraryahanka kooxda Manchester City Raheem Sterling ayaa daqiiqadii 57 u dhaliyay goolka kaliya ee xulku Ingiriiska ku garaaceen Croatia. Kulankii labaad ee la ciyaaray ayaa ahaa kulan aad u xiiso badnaa waxaana dhexmaray xulalka Austria iyo waqooyiga Macedonia. Xulka Austria ayaa ciyaarta gabagabadeedii ay guusha ku raacday 3 gool iyo gool. Austria ayaa la hormartay goolka daqiiqadii 18aad waxaana u dhaliyay xidigooda Liner, laakiin weeraryahanka da'da ah ee Bandev ayaa daqiiqadii 28aad u bareejay xulkiisa waqooyiga Macedonia. qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa xamaasadeeda halkii ay ka sii socotay waxaana daqiiqadii 78aad goolka labaad ee Austria u dhaliyay weeraryahankooda Gregorysh waxaana 89kii soo qatamay oo natiijada 3-1 ka dhigay weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee West Ham Arnautovic. kulankii saddexaad ayaa dhexmaray xulalka Netherlands iyo Ukraine waxaana guusha ay 3 gool iyo 2 ay ku raacday xulkaasi Netherlands. xulka Netherlands ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa uu ahaa mid haysta dhammaan kontaroolka ciyaarta balse uma aysan suurtagelin in wax gool ah ay dhaliyaan waxaana boorteeriga xulkaas Ukraine uu soo bandhigay gulam aad u cajiib ahay. balse qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa daqiiqadii 52aad waxaa goolka koowaad ee xulka Holland u dhaliyay khadkooda dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Wijnaldum daqiiqadii 52aad waxaana 5 daqiiqo kadib goolka labaad raaciyay weeraryahan kooxda Wolfsburg ee Wogost. laakiin ciyaarta oo ay u muuqato in xulka Netherlands ay controlkeeda dhamaan hayaan oo ay kaliya u baahan yihiin in ay kubadda isku dhiidhimaan si waqti ugu dhamaado ayaa waxa lama filaan noqotay oo gool aad u qurux badan oo haddaba u sii tartamaya inuu yahay goolka ugu fiican Euro 2020 dhaliyay garabka kooxda West Ham iyo kabtanka xulka Ukraine Yarmolenko daqiiqadii 75aad. 4 daqiiqo kadib waxaa weeraryahanka xulka Ukraine ee Roman Yeremyuch uu dhaliyay kubad madax ahayd kadib markii Bulisoon uu soo qaaday khadkooda dhexe uu madax ku hubsaday daqiiqadii 79aad. ciyaarta ayaa halkeeda ka sii socotay iyadoo xamaasadda ay ka sii dartaba balse daqiiqadii 85aad waxaa gool madax ah oo qurux badnaa dhaliyay daafaca midig ee xulka Holland Denzel Dumfries daqiiqadii 85aad waxaana ciyaarta natiijadeeda sidaas ay 3 gool iyo 2 ay ugu raacday xulka wadankaasi Holland. maanta ayaa 3 kulan oo kale la ciyaari doona Copa Euro 2020 waxaana kulamadan ay dhexmari doonaan kulanka ugu horeeya ee galabta 4 ayaa dhexmari doona xulalka Czech Republic iyo xulka wadankaasi Scotland. kulanka labaad ee caawa 7 ayaa dhexmari doona xulalka Slovakia iyo Poland. kulanka ugu dambeeya ee maanta saacada habeenkii markii ay 10 ama 4 saac habeenimo waxa uu dhexmari doonaa xulalka Sweden iyo Spain. shalay kaliya Copa Euro 2020 lama ciyaarin oo xalay waxaa si rasmi ah u daahfurmay Copa America waxaana xalay kulankii ugu horeeyay dheelay xulalka Brazil iyo Venezuela. xulka Brazil ayaa si raaxo leh ku garaacay kooxda Venezuela waxa ay natiijada ciyaarta ku soo gabagabowday 3 gool iyo waxba. daafaca kooxda PSG Marquinhos ayaa daqiiqadii 23aad xulkiisu u dhaliyay goolka furitaanka waxaana 64 daqiiqo labeeyay ciyaaryahanka Neymar waxaana daqiiqadii 89aad goolka saddexaad ku soo qatamay ciyaarta Gabriel Barbosa. xulka Colombia ayaa gool iyo eber ku garaacay dhigiisa Ecuador waxaana goolka kaliya ee Colombia qaybtii hore daqiiqadii 42aad u dhaliyay Cardona. isla maantana waxaa la ciyaari doonaa 2 kulan ama caawa sababtoo ciyaaraha Copa America
ayaa dhici doona wixii ka dambeeya 6 saac habeenimo. Xulka Chile ayaa la ciyaari doona xulka Argentine 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo sida u taqaanid, waxaana xigi doona oo 3 habeenimo soo geli doona xulalka Bolivia iyo Paraguay. markana aynu u gudubno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaarta. Sida ay daabacday Calcio Mercato, ciyaaryahanka kooxda Juve iyo xulka Wales Aaron Ramsey ayaa dalabyo ka helayay horyaalka Premier League. Aaron Ramsey ayaa Talyaaniga ku qaadanaya waqti adag oo jahwareer ku riday naftiisa iyo kooxdiisaba. ninka reer Wales ayaa ku biiray Bianconeri 2019 isaga oo ka yimid naadiga Arsenal. Juve ayaa saxiixiisa kaga adkaatay kooxo badan iyaga oo siiyay mushaar aad qaali u ahaa, waxaana wixii xilligaas ka dambeeyay naadiga ay ku wareertay bandhiga laacibkii hore ee Ganariska. waxaana haatan wararka Talyaaniga laga helay ay tilmaamayaan in laacibkan ay u furan tahay marwada duqda ahi in ay iska iibiso haddii dalab anfac laga soo gudbiyo, waxaana haatan rabitaankooda soo bandhigay kooxo ka tirsan Premier League. Calcio Mercato ayaa ku waramaysa in Ramsey uu soo dhaweynayo kulaabashada Premier League, waxa uuna dalab ka haystaa 3 naadi. kooxaha Arsenal, West Ham iyo Crystal Palace ayaa jariiradu tilmaamaysa in xidigan ay doonayaan in mar kale ay ku soo celiyaan horyaalka England. naadiga Ganariska ayaa doonaysa in ay adkeyso qadkeeda dhexe, waxaana la xiriiriyay dhowr ciyaaryahan. Ramsey ayaa taageero Arsenal ah, waxaana macquul ah in taageerayaasha kooxda Emirates ay aqbalaan soo laabashadiisa. dhanka kale, kooxda Juventus ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa kabtanka xulka England weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane. xidiga reer England ayaa dhamaadkii xilli ciyaareedkan ku wargeliyay naadigiisa inuu doonayo ka hayaamida garoonka Tottenham markii naadiga ay ku guuldareysatay in wax koobab ah ay ku guuleysato muddadii uu ku sugnaa. kooxda haysata horyaalka England ee Manchester City ayaa lagu waramayaa in ay hogaaminayso tartanka loogu jiro saxiixa gooldhaliyahan heerka caalami, waxaana Kane uu dooqiisa yahay inuu ku sii nagaado Premier League, balse meesha ma uusan ka saarin inuu u wareego horyaalka Spain. sida ay qortay Calcio Mercato, kooxda Juventus ayaa ku biirtay doonista saxiixa xidigan, waxaana marwada duqda ahi ay kabtanka England doonaysaa in kooxdeeda ay ku xoojiso. xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala ayaa labadaba la tilmaamayaa in ay iskaga hayaami doonaan garoonka Allianz ee magaalada Turin, waxaana taa beddelkeeda Juve ay doonaysaa Harry Kane. xidigan ayaa la tilmaamayaa in naadigiisa aysan aqbali doonin wax ka yar 150 milyan oo euro. dhinaca kalena Manchester Unitedna waxa ay xiriir la sameysay dariskeeda City iyaga oo doonaya daafaca xulka Holland ee Nathan Ake. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa weli ku jira raadinta daafaca dhanka bidaxa oo uu la ciyaarsiiyay kabtankiisa Harry Maguire, waxaana haatan isha la raacayaa kooxda ay dariska yihiin daafaceeda ee Ake. wiilka reer Holland ayaa sanadkii hore Manchester City kaga soo biiray kooxda Bournemouth markii ay u dhacday qaybta labaad ee horyaalka England, waxaana xidigan uu ku fadhiyaa 40 milyan oo euro. Ake ayaa booskiisa City lumiyay markii daafaca reer Portugal ee Ruben Dias uu naadiga reer England ku soo biiray xagaagan. City ayaa macquul ahayn baa la leeyahay in kooxda dariskeeda ay xifaaltamaan ay ka iibiso daafaca tayada leh. dhinaca kalena, tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa doonayay in kooxdiisa uu keeno qadkii dhexe ee Liverpool laacibka kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho. tababara Rodgers ayaa laacibkan horey ugala soo shaqeeyay Liverpool, waxa uuna macallinkii hore ee Celtic uu doonayaa in xidigan uu keeno garoonka naadiga Foxeska. kooxda reer England ayaa ka gudbin doonta Coutinho dalab qiimihiisa yahay 17 milyan oo euro, waxa ayna aaminsan tahay in qiimahaas uu ku filnaan doono helidda saxiixa xidiga reer Brazil. kooxda Barcelona ayaa diyaar u ah inay iska iibiso laacibkan, waxa ayna sugaysaa dalabyada kooxaha reer Yurub ee doonaya Coutinho. Coutinho ayaa sidii uu ugu biiray Camp Nou waxa uu ku guuldareystay inuu soo bandhigo qaab ciyaareed la mid ah kii uu ku soo bandhigay Liverpool. dhinaca kalena, kooxda Borussia Dortmund ayaa lagu waramayaa inay aaminsan tahay in isbuucan dhexdiisa uu soo gabagaboobi doono wadahadalka ay kula jirto Manchester United oo doonaysa saxiixa xidiga kooxda reer Jarmal ee Jadon Sancho. ilo ku dhow naadiga Jarmalka ayaa laga soo xigtay in xidiga Sancho uu isbuucan dhexdiisa ku biiri doono Manchester United. Dortmund ayaa dul dhigtay sanadkan xidigeeda 90 milyan oo euro, waxaana United ay diyaar u tahay in ay bixiso 85 milyan oo euro. wararka ayaa tilmaamaya in farqiga 10 milyan ee u dhaxeeya labada kooxood waqti dhow laga heshiin doono. Manchester ayaa saxiixa Sancho daba taagneed muddo sanad iyo bar ah, waxaana haatan ay u muuqataa mid ku guuleysatay bartilmaameedkeedii ugu weyn xilli ciyaareedkan. tababare Solskjaer ayaa taageero weyn u ah xidiga reer England, waxaana uu doonayaa inuu ku xoojiyo weerarka kooxdiisa. sidoo kale, tababare Ole ayaa lagu soo waramayaa in xidigiisa reer
Faranse ee Anthony Martial uu ku daray liiska ciyaartooyda Old Trafford ka fasixi doona xilli ciyaareedkan. Ole ayaa ku qancin baa la leeyahay habdhaqanka Martial waxa uuna u furan yahay haddii dalab wacan laga soo gudbiyo inuu fasaxo. Isbuucii hore ayay ahayd markii wakiilka xiddigan uu kooxda reer Spain ee Real Madrid uu u soo bandhigay Martial isagoo ku khalkhalinaya naadiga Madrid in si amaaha ay ku qaataan weeraryahankani. Ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa doonaya da'yarka kooxda Ajax iyo xulka Holland Ryan Gravenberch. Xiddigan ayaa ku soo baxay dugsiga naadiga Ajax waxaana kulankiisa ugu horeeyay uu ciyaaray kooxdiisa 2018 isagoo 16 jir ah. 19 jirkan ayaa ka mid ah ciyaartooyda xulka Holland ku matalaysa Euro-ga waxaana horey loola xiriirinayay saxiixiisa kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Tababare Koeman ayaa maamulka kooxda ku wargeliyay in ay u dhaqaaqaan da'yarka reer Holland waxa uuna u arkaa mid wax weyn ku soo kordhin doona mustaqbalka naadiga Barcelona. Barnaamijkeeni galabtana waa inaga inta